wafdi ka kooban ilaa iyo 10 saxafi oo caalami ah oo ka kala socda warbaahinta adduunka ugu caansan oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal hawleed ku yimi xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxaana ay ugu horeyn kulan la yeesheen gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan oo ay ka wareysteen xaaladda ammaan ee gobolka Saaxil waxay sidoo kale wafdigu booqdeen saldhigga dhexe ee booliiska oo ay kulamo kula yeesheen koox budhcad oo ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland kuwaasi oo ku eedeysan falal budhcad badeednimo isla markaana sugaya in lagu maxkamadeeyo dalkani Soomaaliland kooxdani ayay wariyaashu waraysiyo la yeesheen isla markaana xog warano ka qaadeen sidoo kalena waxa ay booqdeen jeelka dhexe ee magaalada Berbera oo ay kormeereen xaaladiisa guud iyo xaaladda maxaabiista ku jirta jeelkaasi waxay sidoo kale booqdeen taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland halkaasi oo warbixin ku siiyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland taasoo dhibaato weyn runtii inaga Soomaaliland aynu ku haysan adduunka oo dhan adduunweynahana dhaqaalihiisa iyo socodkiisa maxaan ku leeyahay Afrika ana dhibaato ku haysan marka xil weyn ma naga saaran waanu dadaalnaa badda habeenku waan ku dhaxnaa subax hore waan ku kalaanaa maalintii waan u galnaa waxa aan helaa had iyo jeer in warbixino inay nimankaasi soo baxaan taasoo noo soo gelisay arrimo fara badan oo noo sahashay markaba hawlahan imankaan ku guuleysanay ay ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland heeganka ugu yihiin ilaalinta badda Soomaaliland iyo la dagaalanka budhcadbadeeda Soomaalida ee soo gasha biyaha Soomaaliland kooxdan wariyaasha ee ka socotay warbaahinta caalamka sida wakaaladaha wararka iyo telefishinada ugu caansan adduunka ayaa waxa uu helinayay Muhaddahir Faarax oo ka tirsan telefishinka qaranka waxa ay kooxdan wariyaasha ay soo dhaweeyeen awoodda ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay la dagaalamaan budhcadbadeeda ku soo xadgudubta biyaha Soomaaliland kuntii iyo gabagabadiina waxay kooxdan wariyaasha ujeedada socdaalkeedu ahaa in ay warbaahinta caalamku qiimeyso xaaladda ammaan ee Soomaaliland iyo xaaladda la dagaalanka ay budhcadbadeeda kula jirto Soomaaliland oo in ka badan 70 budhcadbadeed ah ay ku maxbuusan yihiin xabsiyada Soomaaliland Cabdikariim Saciid Saalax Hon Cable TV Berbera